barnaamijka waxaa qayb nagala ah abwaaniin Soomaaliyeed ayaa fadhisa dad sidoo kale dad ayaa marti inagula ah dadkana kulay su'aalay ka weydiinayaan marka hore waxaan siinayaa abwaan Bile Kurfe waasagana kulay ka qayb qaadanay barnaamijka aad iyo aad baan waxaan ugu faraxsanahay barnaamij noocan oo ay soo qaban qaabisay Home Cable inaan ka soo qayb galo oo waliba looga hadlayo maandooriyaha markaan inta salaanta uga gudbo waxaan rabaa inaan su'aal weydiiyo sheekha haddii la yiraahdo dadkii ka shaqaystay lacagta hal aadeen dhinaca khayrka laha aan isiraado ilaahay nolosha waa ku sii siinayaa bal yaan inta lacag ka tabacay alaabta hadda waa dhinaca kale oo la wareegtay oo aan ku guda jira aan ku dhinto hadda waxaan rabaa inaad iiga jawaabtid balse noqon karto diniyadayda waxa ku jira bal inaan ka baxo aan meel khayr la aado inta waxaan rabaa inaan su'aasha uga gudbo nimba aan aad ugu kalsoonahay baa wuxuu iiga sheekeeyay qaadka wuxuu yiri meel rikoorada iyo saacadaha lagu sameeyaan lahaan jiray marka saacadaha iyo rikoorada sameyn jiray dabeetana xoogaa biilan soo helay maalintii qayb kamid aan qaad ku gatay qaybtii kale aan guriga la imid waxaan isiri bari biil ha laga dhigto dabeetana qaadkii waa iga dhamaaday waxaan isiri rikoor iyo saacad kale aad sameyn doontaa aad bal intaan aad ku tuuratid marka lacagta aan macnaha biilka aan soo helay qaybtii guriga aan geeyo yiri aan isleeyahay aad ku qeeysh rikoor kale aad sameyn doontaa guriga baan taa u dhuntay gabadhii iyo jikada ku maqan baan xoogaaga xaday qaadkii baan ku soo gatay dabeetana wax dambe aan sameeyana waa waay suuqa reerka wuxuu soo dhacay biil la'aan dabeetana go'aan baan waxaan ku qaatay 20 sano aan cunay inaan qaad dambe cuninin xaqa ilaahay barakeeyo ninkaas uu hadeer qaad muu cuno intaas waa kulli sheekada uu iiga sheekeeyay ninkaas waxaan rabaa anigu abwaan meeyaa laabuur baanahay bal in yaro maansa laakiin cusub oo aan waqti dhow sameeyo saacada ka hor bal inaan ku daro barnaamijka hana u noqoto dhowr barnaamij baan uga hadlayaa mid koobaad oo iska aan hooyo Soomaaliyeed oo wiil dirsatay baan rabaa inaan uga hadlo oo tacliin u dirsatay laakiin uu qaadku wadadii ka leexiyay mid labaadna waxaan rabaa gabdhaha laftirkooda ee waxbay ku leeyihiin anoon balwada ku leexinayna anagu balwada in rag iyo dumar saameysay haddana gabdhaha hagaagsan oo xafiifooyinka inay nimanka qaadka cuna ka leexdaan aysan guursanin haddii lagu cadaadiyo gabdhaha ragga guursan waayaan qaadkii sigaarka iyo yacni balwada leh waa laga soo hanuunaya dariiqa waa laga soo laabanaya laakiin mid walba haddii ay marka magacna idinka u bixin doona kul aan waxaan u bixiyay noqo guumeys han weyn intii aad mid qaadka cuna guursan lahayd iska noqo guumeys han weyn baan u bixiyay wadna hadsantiin hadda waxaan rabaa bal inaan idin mariyo idin koraaliya haddii uu waqtiga ku filan yahay waxaan iri hawada nolosha ahan kale hormid waliba qofka hidiya dhaqan oo halka hubsiino ay maalinta hareeray waayaha hungoy ciil baan qabaa haraad weyn baan qabaa wax tagay baan haybiyaa dadkaygaan hadal hayaa inta waa hoorsigii naftayda hagooganay hankayga hoos u dhacay waraabiya bahal ihele dadka waraabiya bahal inay cunaan kale waa way cadahay oo waa eray aan muran ku jirin halka aan kaga gudbee waxaan ahay hooyadii waxaan halka aan kaga gudbee maxaan hadimoy ku nacay qaado u hortaaganta dhashayda u horarsataa hablaha ii dhaafisaa tacliinta u hanaq jirtaa hankayga u gowracdaa anoo wiil hanada dhalay iskuul heer sare u diray halkuu ka aflixi lahaa adaa madaxii hantiyey daroogo kalena u hoday hadhow tashalay ku riday de markay daroogada cunaan hadhow ka shalaayeen habeenkii markay soo qaylaan sida la ii sheegay anuu mana qaylo hadhow tashalay ku riday calooshaan ku hayay in badan fooshii baan yara hinqaday naaskaygaan hoog ku idhi dhabarkaan ku hayay in badan afkii baan hagaag u baray de hooyadii baa la hadlaysaa intaasay soo marisa markuu hana qaadi lahaa naftayda uu hanan lahaa aqoonta hormarin lahaa dalkiisa u heelin lahaa aayaha wax ka hagi lahaa qaadka haadaan u qoday ka dhigay hoogaaba'aha wuxuu heli lahaa ka hoday de waxa laala wuxuu noqon lahaa qaadka wuxuu ka sameeyay kole dariiqii uu ka lumiyay miira iyo hareeri baray qaadku waxa la laba miiraaguna halka baxa mid Itoobiya ka baxo dheer baa jiro miira waxa la hareeri miira iyo hareeri baday sigaarna hambaysay yiri qabrana hiinso liq baday inta waa hil rageed gabdhaha aan halow ku dhaho adoo sharafkaaga hoolin hiraabta adoon barooran hilbaha sare bahal u loogin u hiilin midka hungoobay hoogaha raganimo ka raadin nin ha u guursaneen nin ma yahay rag waa islaan waa isdhaamaane hoogaha ninnimo ka haybin ka hoyo bahalka haraadan ahaw guumays han weyn
dee intaad kaas guursan lahayd dee kolay nin kuu noqon mayo biilku kaa xadaya marka ugu dambayse iska ahow guumays kolay nin waayi maysa haddaad gabar fiican tahay ha oran waa ina haliyey ha oran waa ina haliyey ha oran waa reer hebelna weeye ha oran hanad quruxsan weeye hadduu sida halaha daaqo dhurwaaga sidiisa haysto hinsiga af Soomaaliga waxa lagu yiraahdaa waxba ma reebo koobka biyaha hadii loo keeno hanbo male isku foorariya ha oran waa reer hebelna weeye ha oran hanad quruxsan weeye hadduu sida halaha daaqo dhurwaaga sidiisa haysto sidii doqon oo hurdaayo horshaa iyo geeda cunayo horshaag waa geedaha ugu qarar sida la ii sheegay intuu ku halaagi laa halkaagiyo guriga joog ahow guumays han weyn dawaca ubadkeed hahayn ka heeran ka harmindha hareerta dhabanada waxaa la yidhahdaa labadan meelood gabar aan la dayactirinna labada dhaban khasab way ka hormaan gabdhuhu meesha iyo meeshaas markii ay busaaradii xayraankii fakarku ka bato ilaa uu iska dhaxayaa sidaad sheegaysay ama waaba de markuu cunub iska dhaxayaa meeshaas unbu iska seexanaya marka ka harmin hareerta dhabanada ahow guumays han weyn halka iyo guriga joog baan ku soo gabagabay aad baad u mahadsantihiin